والله بالله تالله intaad annagana dhacdaan inayna ku raaxaysanin hoteelada dhulboobka xasan sheekh maxamuud cid ka nabad gashay ma jirto cid uu cafiyay ma jirto wallahi billahi tallahi intaad annagana dhacdaan inayna ku raaxaysanin hoteelada wallahi billahi tallahi hoteelada ku dilayna guryihiinaan kugu dhacayna walaalayaalowna kala badbaasha haddaan nolol weyno oo gurigayaga booska ah oo kaligiis oo aan leenahay aan ku noolaan weyno waxaan ka shaqaynaynaa inaan qofna noolaan hotel aan lagu raaxaysan aan labadna kala qaadan kulan wacan wanaagsan daawadayaal maanta falanqaynta qoran waxay dul taagan tahay ood weyne meel xasan sheekh maxamuud doonayo inuu burbiyo shacabkeena ay ka hor yimaadeen qoryaha ciidanka dawladda lagula dhigay maanta ceeb ka taagan magaalada muqdisho iyo dhulboobka madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ka wado haatan waxa uu la tagay dad ayagu markii hore faraha ku taagnaa oo dadka dhici jiray meelay way isqabsadeen xaalad xun ayaa ka taagan halkaasi ciidamadii ayaa gawaarida lagu dul koray agaftii ayaa taayirada laga banjariyay sheekadaasi ayaan idin hayaa ee fadlan muuqaalkan shargare marka koowaad saaxiibada u gudbi qof kasta meesha jooga u geey dayniile degmada oodweyne maanta maxaa ka dhacay dawladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud hogaamiyo iyo saaxiibadiisa ganacsatada tuugada la ah ee dhulka danta guud booba iyo sidoo kale meelaha dadku ay degan yihiin sida xooga oo kaca ayaa saakay waa barigii ku jirmaaday deegaanka oodweyne oo ah meel dad shacab ay degan yihiin 15 sano ugu dambeysay nabdooneed aad iyo aadna ugu kamid ahayd meelaha magaalada muqdisho ugu degan dhibaatada aan laga soo sheegin ganacsato ayaa hogaaminaysay xasan sheekh maxamuud ka haysata konfeyn buuxa inay dhulkaasi burburiyaan waa dhul aad u ballaaran oo ay ku nool yihiin dad kumanaan kun boqolaal kun xitaa laga yaabo inay gaarayaan shacabkii ayaa isku soo baxay waxa halkaan taagan waa shacabkii gawaaridii ciidamada waa lagu koray dadkii oo dhan ciidamadii xitaa waa ay yaabeen ayaga ayaana isaga cararay laakiin waxaa la sheegayaa in baris wax qorshe u yahay mar kale inay weerar soo qaadaan ujeedku waxay tahay dhulkan oo ah xasan sheekh maxamuud ayaa hal mar tusan meel banaan inuu la wareego ganacsato ayaa hogaaminaysa ayaguna meesha ka soo jeeda dadka shacabka ah ee odayaashu hogaaminaya waxa ay wacad ku mareen in ay dili doonaan qof kasta oo ka shaqeynaya in dhulkooda guryaha ay ku nool yihiin burburiya oo aan xitaa hoteelada ugu daba tagi doonaan oo aanay deynaynin odayaal caaqiliin ah garkooda cireystay ayaa kitaabo maray barina halkaasi waa la isku joogaa dawladda federaalka ee Soomaaliya shib ayay ka tahay booliis ayay soo dirsatay ganacsato ayaa hogaaminaya dawladda hoose waxbay ka ogtahay sidoo kale booliiska gobolka Banaadir waxbuu ku ogyahay oo dhulkan dhamaantood dadka madaxda dawladda ka ah ee musuqmaasuqa caadaystay waa isla ogyihiin mid ayayna rabaan in ay u kala qaataan oo loo kala jarto waa heshiis la soo gaaray dadkan laakiin waxay u ogyihiin kuwa aan yeelin waliba waxa la aaminsan yahay in hub iyo saanad ay heli karaan maadaama dad ayaga ka soo jeeda xirooyin ciidan oo halkaasi ah ay ku sugan yihiin dhulkana ay wax ka degan yihiin oo ilmahooda iyo xaaskooda ay joogaan oo ay dagaalka soo gali karaan waxa laga cabsi qabaa oodweyne dagaal mar kale inuu ka qarxo laakiin odayaasha iyo caaqiliinta oo hadlay kitaabka ay mareen waxay ku sheegeen inaan la nabad heli doonin haddii aan laga leexan si fiican ila daawo ninkan odaga ah oo ka hadlay oodweyne isagoo hortaagan iyo dadka shacabka wallahi billahi tallahi intaad annagana dhacdaan inayna ku raaxaysanin hoteelada wallahi billahi tallahi hoteelada ku dilayna guryihiinaan kugu dhacayna walaalayaalowna kala badbaasha haddaan nolol weyno oo gurigayaga booska ah oo kaligiis oo aan leenahay aan ku noolaan weyno waxaan ka shaqaynaynaa inaan qofna noolaan hotel aan lagu raaxaysan aan labadna kala qaadan ayadaan ka shaqaynaynaa wax badan baan waxaan ka shaqaynay saaka annagu dawlad aan u dacwoonayna male dawladdu saqiir iyo kabiir midka ugu weyn iyo midka ugu yar waa maafiyo tuugaa ma u dacwoonayno od anigu ka mid maahi xasan shiikow noo soo gurma ma dhahayo sharci darra hadday dhacday ninba ninkuu ka xoog badan yuu dhacayaa ninba ninkuu ka xoog daran yuu daminahayaa sharcigii adinkaa jabiyey ogaada saakay horay iyo gadaal waxaa noo dhow horay baa noo dhow geeri baa noo dhow waxaa saakay dhib nagu haya oo na soo weeraray oo xaafad dhan oo aan xero ahayn annagu ma diidanin xero dawladeed mana deganin xero dawladeed
waxaan degannahay dhul sharciya oo dukumiintigiisu kala duwan yahay oo nuuc walba leh oo goofafa oo sharciya waxaan ogeyn dawladdu inay hadda ka hor dhulka dawladda dadkii degan ay gadanayso waa ogeyn haddeerna waxaa nagu bilowday xaafad soo arka niman gaangisa oo nimanka la yidhaahdo maafiya oo maafiya xasan xilligii uu jiray abuurantay oo uu ka mid yahay ninka la yidhaahdo gallad aadan dhakal uu ka mid yahay oo tima caddoon nootaayo fadhiya uu ka mid yahay oo cabdullaahi nuure oo diinle oo gaajo aysa u geynoo maalin walba inuu dad bililqaysto oo 80 jira oo raba inuu saacaddan asagoo 80 jira raba inuu dad bililqaysto oo raba waxaan rabnaa waxaan idiin sheegaynaa saaka annagu dawlad aan u dacwoonayna male dawladdu saqiir iyo kabiir midka ugu weyn iyo midka ugu yar waa maafiyo tuugaa ma u dacwoonayno ood anigu ka mid maahi xasan shiikow noo soo gurma ma dhahayo laakiin waxaan leeyahay xasan shiikow waxaad ogaataa sharci darra hadday dhacday ninba ninkuu ka xoog badan yuu dhacayaa ninba ninkuu ka xoog badan yuu daminahayaa sharcigii adinkaa jabiyey ogaada waxaad isku fasaxdeen dadka Soomaaliya in qofba qof dilo baad isku fasaxdeen waxaad tihiin maafiya aan waxay mas'uul ka tahay la arag waxaad jira saaka markayna soo weerareen ilaa 6 qof bay naga dhaawaceen dhimasho kolley waa jirtaa baan u malaynayaa waxaanan sheegaynaa saakay hore iyo gadaal waxaa noo dhow horey baa noo dhow geeri baa noo dhow waxaan idiin sheegaynaa nimanka maafiyada oo 8 nina oo in habuulac ka mid yahay oo aadan dhakal ka mid yahay oo tima cadde ka mid yahay oo 8 nin oo isku jifaac ah wallaahi billaahi tallaahi intaad annagana dhacdaan inayna ku raaxaysanin hoteelada wallaahi billaahi tallaahi hoteelada ku dilaynaa guryihiinaan kugu dhacaynaa ma idinka yeelayno inaad inta nasataan oo boosaskayaga jabisaan adinkuna aad raaxa ka qaystaan oo aad inta isku dhufsateen meeqaa faa'iido ku jirta 14 milyan oo kaasha ku jirta war wallaahi idin cafalay 14 milyan oo kaashka oo adduun iyo aakhiro adduunkana rag baan kula xisaabtamahaya aakhirada ilaahay baan kula xisaabtamahaya waxaan idin leenahay walaalayaalowna kala badbaasha haddaan nolol weyno oo gurigayaga booska ah oo kaligiis oo aan leenahay aan ku noolaan weyno waxaan ka shaqaynaynaa inaan qofna noolaan hotel aan lagu raaxaysan aan labadna kala qaadan ayadaan ka shaqaynaynaa wax badan baan waxaan ka shaqaynay nabad in la qaato oo la noolaado oo qof walba gurigiisa ku noolaado adinkaa diiday annagu gudul dawla ma deganin uma dhowin xataa 100 kilomitir 100 mitir xataa uma jirno uma dhowin waxaan leenahay cid aan saaka u cabanayna ma jirtee waxaan leenahay hadday dan idiin tahana ummadda kala badbaadiya hadday sadad idiin hayna isku fasaxa qof walba qofku ka adag yahay boobka xasan sheekh maxamuud cid ka nabad gashay ma jirto cid uu cafiyay ma jirto xitaa haddii walaalkiis loogu sheego boos bannaan waxa uu damcinayaa in halkaasi booska ku yaala uu qaato